السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا خالقة ميل بوضافة عالم كوكوس وانتين كسو دوادا channel كيغا إمراس إيو برتا فيسبوك أن كلها مو إسماعيل وحا عاوة برنامجك يقو مرتئة فلنخية سياسات جيسكا أفريكا دكتور محمد داد وأن عاوة كوريسان دونو حالة دالك صوماليا وكسو غني هاي محمد أقصد وين أمريكا مثلا سؤال هنا أن هرق جدولنا وحن ربا سؤال شو هو رئيسه أن ربينا ويديو سيدا هو أرتا حالة دال كمان تا وكسو غني بسم الله حالة الدول كمان وكسو غني هاي شري يمان تو كلو عنده هاي شري بكي برلمان الصومالي أي عن كغاتين تسلو سارها الشعب الصومالي قاد بقونح صح waxaan lagu fikiriyay in dagaal sokeeye iyo maaragtay colaado sokeeye ay dhici doonaan buuq badan dhici doono laakiin waxaa alxamdulilah ra-iisul wasaare khayre si fiican buu yeelay markuu hadlay dadka waran baa ka baxay صح colaadihii ku jiray iyo dhibaatadii dareemayeen waxaan moodaa inuu maaragtay si fiican oo maaragtay uu dadka u qanciyey shacabkana u dejiyey wuuna ku maasan yahay mas-uuliyaddiisana aada u gutay صح maxay kula tahay sababta loogu qaado ra-iisul wasaaraha xilka maadaama ay dowladdu ay ka dhiman tahay xilkeedii uu gabaabsi yahay muddo koobanna ay aada uga harsan tahay maxaa sababa oo keenay in ay xilligan kusoo aado in ra-iisul wasaaraha laga qaado xilka mas-uuliyadda ama xilka qaadista ama xildhibista waa midda horta xag alle marba ka timaado oo qofka maaragtay markuu mas-uuliyad qaadayo ama xilka loo dhiibayo oo wuxuu ilaahay usoo ogmaday marka khayre inuu intaas haya ayaa qornayd laakiin haddii aan malada aan u leexano khayre shaqooyin fiican buu qabtay oo maaragtay waddadii loogu talagalay mas-uuliyad u lahaana inta badan wuu gutay waxaa looga qaaday oo xilka looga qaaday oo maaragtay sababayna waxay tahay hal arrin show 2020 miisaaniyadda dalka waxaa loogu talagalay uu gudbiyey 470 milyan oo dollar ayuu gudbiyey kuma uusan darin shaqadiisa ahayd inuu ku daro qof doorashada صح miisaaniyadda doorasho kuma uusan darin taasoo ka mid ah shaqooyinka loo egmaday inuu qabto 4 sano February 2021 isku soo afjaro kuna dara miisaaniyadda dalka miisaaniyadda doorashooyinka taasoo ahayd shaqadiisa haduu guda way imaanaysaa maaragtay xilka qaas inuu sameeyo okay maxaa xigi doona maadaama ay hadda ay kusoo aaday in ra-iisul wasaaraha xilka laga qaado loona ballansan yahay 15 Agost in shir lagu qabto ama shirkii qaybtiisa saddexaad lagu qabto magaalada Dhuusamareeb maxaa isleedahay oo dhici doona macnaha mase dhici kartaa in shirkaasi lagu kala boodo maadaama ra-iisul wasaaraha hadda xilka laga qaaday dalkan wuu toosaya kor buu u socdaa oo sudhaca ma jirayo madaxweyne buu yimaadana meeshiisa ayuu kasii qabanaya farmaajo maanta dib u laabano farmaajo maanta xilka loo dhiibay ilaa maanta waddadii loo dhiibay ama madaxweynima loogu dhiibay farmaajo qof dad isugu jeclaaya saaxiibkiisa 3 sano bar wada shaqeynaya maanta wuxuu u riday macnaha waxay ahayd wax kale maaha inuu farmaajo soo dhisi waa in kala yidhahdo khayre uu soo keeni waay si walba ku noqoto culays walba fuulo inuu soo keeni waayey miisaaniyaddii doorashooyinka dalkana loogu talagalay qof iyo cod farmaajona waxaan ugu fadhnaa madaxweynaha soomaaliya ballamaha uu qaaday inuu maaragtay ka fuliyo dalkana qof iyo doorasho hadduusan gaarsiin karin doorasho dadban iyo doorasho qof iyo codaba February ugu fadhnaa oo ka taasoo ka mid ah ballamihii uu qaaday maadaama asigu madaxweynaha uu ku adkeysanayo inay dhacdo doorashada cod qof iyo cod ah uuna leeyahay maadaama baarlamaankii la geeyey ajandihiina baarlamaankii uu ansixiyey aniguna aan saxiixay
soo ma hordhici karo baarlamaanka inaan kula noqdo oo shirkiisii hadalkiisii ugu dambeeyay oo Dhuusamareeb uu ka sheegay oo ahaa inaan baarlamaanka ku noqdo aan ka soo saaro war muhiim ah sida waxay ayagu soo yiraahdaan ay idin kula soo noqdo marka ma is leedahay arintaasi way hagaagi doontaa maya marnaba doorasho qof iyo cod ma dhici marnaba qof iyo doorasho uma jirin laakiin dalka inuu doorasho galo waa muhiim sida dashada loogu dhibayna uu maaragtay u keeno ra-iisul wasaare ay qalday iyo wasiir baa ay qalday iyo saan bay iga noqotay iyo taas layskama yeeli doono marka taas micnaheedu waxay tahay in odayaashii shalay wax soo xulay maantana dib loogu noqonayo dabcan si walba ay ku imaan karto waanu iska dhiibaa uu gaarsiiyaa meesha loogu dhiibay waqtiga loo dhiibay iyo ballanta loo dhiibay okay maxay ku dambeyn doontaa hadda is leedahay ama is leedahay madaxweynaha 6 bilood ama waxa ka yar sanad wax ka yar ayaa dhiman in uu doorasho kale loo gudbo 2021 bisha 2 ee 8deeda yaa is leedahay uu soo magacaabi karaa qof gaarsiin kara qof iyo cod ama waxay doonayaan dawladda hadda jirta in ay xilka kororsadaan horta madaxweynuhu waa sharciyeedyaha guud ee dalka Soomaaliya shalay loo dhiibay labada gees waxa ka taagnaa laba madaxweyne si fiican waqtigooda u dhiibay isagana sidoo kale laga doonayaa ra'iisul wasaare walba yimaado oo soo doortana waxa laga rabaa in uu sida ay tahay u shaqeeyo habka doorashada loo qabo doono sax iyaga keenaan qorshihii loo qabo lahay inagu laba qorshayno iyaga maanta qalinka gacanta ku hayo inagu ma hayno waxaa laga doonayaa inay qof iyo cod haddaysan gaarsiin karin doorasho dadba gaarsiiyaan xilligeeda iyo waqtiga February miiska saaraan sax ra-iisul wasaare ay qalday iyo saan iga noqotay iyo lagama doonayo inay maaragtay keenaan halay garaabay inay yiraahdaan maaha waa inaan miiska saarnaa dalkiisa loogu dhiibaan dalka waxaa laga soo bixiyay colaado sokay dhibaatooyin badan waa loo soo dhaban adeegay dadka Soomaaliya waxay u baahan maanta in wax walba dhacay la satasho si fiican anagoo og wixii shalay baarlamaanka ka dhacay inay maaragtay wax fiican ahayn oo mooshinada marka la keenayo waa in laga soo wada hadlaa oo qoraallo loo gudbiyaa ra-iisul wasaaraha si degdega maridee waa ridnay wax fiican maahay haddana ra-iisul wasaaraha geesinimo muujiyey waan u hambalyeynayna shacabka Soomaaliyeed wuu og yahay sababka wuxuu sameeyey geesinimada u hadlay marka sidaa daradeed ra-iisul wasaare Khayre waxaan leenahay waa aad u mahadsan tahay waan lagu og yahay abaalkaas waa u gashay maxaa is leedahay shalay si degdeg ah ay ku dhacday in cod loo qaado ra-iisul wasaaraha oo in loogu qaado xilka ayadoona maxaa la dhahaa aanan ajandahaasi laga hadlin oo si degdeg ah ay ku dhacdo si degdeg ah xilka loogu qaado ma is leedahay meeshaas waxaa ka jiro arrimo siyaasadeed oo aad u qalisan oo ka socda dhanka madaxweynaha wixii jiraba way soo baxayaan haddii ay baarlamaanka doonayaan ku darsasho iyo hadduu maaragtay madaxweynaha rabo in loogu sii daraba way soo baxayaan wixii jiro laakiin barnaamij shacabka Soomaaliyeed ma yeeli doonaan in maalin lagu daro 8 February 2021 waa looga fadhiyaa madaxweyne Farmaajo inuu miiska saaro si shir lagu dhiibano u keeno sax marka waxaa is leedahay mid soconaysa ma ahan in uu sameeyo xil muddo kororsi yani no sii socota no shacabka barnaamij yeeli doonaan maadaama ay sheegeen maxaa la dhahaa Xaliim Yarey ay sheegtay ilaa 13 bilood la siiyo ama la siiyo maxaa la dhahaa 12 bilood ama August ay ku eg tahay in xil lagu soo doorto doorasho qof iyo cod ah ay gaarsiin doonaan dalka taas ma is leedahay way gaaraysaa labada madaxweyne ka horeysay haddaan dib u laabano madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo madaxweyne ninka la yiraahdo Sheekh Shariif labaduba iyagu wax ka dhiban yihiin ayay xilka tiriyeen doorashada istaajiyeen loona guuleystay madaxweyne Farmaajo duusan gaarsiin karin aan ka dhaxgalo meeshaas madaxweyne Sheekh Shariif wuxuu ku darsaday muddo sanad u dhow
madaxweyne xasan sheekhna waxaa intii xoogaa ay socotay doorashada iyo soo dhawaashaheedii wuxuu qaatay isna dhowr bilood ilaa 4 bilood marka maxaa diiday asagana ninkaan in uu ku darsado muddo inta hadda loo cayimay waxaa diiday labadaba haba jiitato laakiin waxay samaynayeen waqtiga ay doorashooyinka iyo budgetka miisaaniyadda doorashada waxay ugu jirtay sanad walba miisaaniyadda sanadii ugu dambeeyay ay kusoo darayeen laakiin dowladdan maanta joogto oo madaxweynaha ka yahay farmaajo wax miisaaniyada kuma darsan hal baan la aragnay khayro la tuuray welina kama soo bixin warqado iyo maaragtay wixii dhacay inay qaladii sax madaxweynuhu isla markiiba wuxuu ku dhawaaqay inuu ansixiyey oo sax tahay soo ma isleedahay meesha madaxweynaha inuusan khalad lahayn uu madaxweynaha asagu hawshiisa uu gudanayo waajibkiisa uu gudanayo uu yahay fuliye laakiin ra-iisul wasaaraha looga baahan yahay inuu dalka howlihiisa uu kala wado ra-iisul khayre waxay ahayd markuu arkay waxaan inaysa soconayn inuu iscasilo si sharaf ah haddana sharaf buu leeyahay hadduu yidhi anigu shacabka isku tanaasul shacabka dartiis waxaa buu sameynaya waa ka aamusay xaq waa ku maasanya shacabka Soomaaliyeed ugu mahadcelinaya laakiin ninka la yiraahdo madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha ummadda Soomaaliyeed mudane Farmaajo ha ogaado marnaba inaan laga yeeli doonin muddo kororsi shacabka Soomaaliyeed uu soo jeedo midda kale shacabka shacab daalan oo waxa weeye soo daalay oo gudad baa laga soo bixiyay welina maaragtay qabo nabaradii iyo dhaawacyadii runtiina aan ugu jeeday madaxweynaha waxaa rabaa inuu feershi aad u fog leeyahay inuu yahay qabiilo Soomaaliyeed iyo colaadiis oo kala